بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي حبيباتي دمان وإذن سلام ملك استودوني دافيدك الجوكتين ومركلي ولا شين فلسنك خير كيدن لتشعل وحايد لا جمعة وناكسن جمعة مبارك. رمضان كنو نوسو سعدا ما شاء الله تبارك الرحمن إله النبضي عافي ما تنقو قارسيو كوو كفايدة استنى الله نقدقو waxaan soo sugeynay 12 bilood marka midoo dheedheel ku dhaaf ilaahay naga ma dhigo leelatul qadarka ku mataqaana ilaahay oo waafaji allah naga dhigo kuwa maaragtay bishan barakeysan ee dheedheel ku dhaafin amba qaflo ku dhaafin allah naga dhigo kuwa si dab oo kaamil u cibaadeysta allah naga dhigo ma sha Allah. بعد سلام walaalahayga qaaliga ah waxaan rabaa inaan nala wadaago qiso cajiib jiddan ah abaayna la qaybsatay 12 sano xanuunsaneeday barnaamijkii ahaa waaye nagu soo bir aad liibaanteeda maxaa ka faa'iiday. walaasheen waxay ku bilaabatay qisadeeda sida tan. waxay dhahday abaay filsan waxaan xanuunsanaa 12 sanadood waxaa la iga hayay xanuunkaygu u badnaa madaxa. waxay tiri dhakhtar kasta waan tagay jeeri dhaqaatiirta igu dhaheen noo saxiix haddaad dhimato inaan nolol ka qabsanaynin. waxay ku nooshaa cariga Yurub. waxay dhahdaa abaayo aniga waxay tiri xaaladaas ku sugan 12 sanana meel aan marin aysan jirin wax aan sameyn aysan jirin oo waxay tiri hadda soo macaaday yaa waxay dhahday maalmaha kamid ah waxa la igu soo shirgareeyay clip aan leedahay video kaaga la igu soo shirgareeyay waxay dhahday qissa waan dhageystay qisooyinkan dabagal waan macaansaday waan ka helay waan dabagalay qissa marka itaabatay dhahday nolosheeda inaa isbedelo waxa u sabab aheyd tir qisooyinkaada kamid ah ayaa u sabab aheyd tir. waxay tiri horta gabadha abaayo hadda ka hor waxay dhahday aad soo gelin jirtay qisadeeda oo waxay tiri lugta khalali jirtay oo waxay tiri quraanka si saartay waxay dhahday kitaabka tuuri jirtay ninkeeda xanuunka uga tagay ku furay muddo xanuunsaneeday gabadha abaaye aheeday quraanka is cilaajisa ayada iyo sidaqadii ay la baxday wixii oo dhan waxay tiri aad ii saameeyeen. hidaayadu waxay tiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka markuu kula soo doono umbaad helaysaa. ilaahay wuxuu iga soo ka dhigay tiri ilaahay shan qeyr oo ii soo ka dira. waxay dhahday 15 sano anoo jiraan quraanka bartay laakiin kuma calmal faleenin mana aqrisaneenay tiri aqrisa jirin. بالعكس حتى waxay tiri salaadihii waxay ahaayeen tiri kuwa maaragtay isdhaafsan macnaha sidii la rabay aan u dukanin. waxay dhahday xaalad cajiiban ku noolaay rafaad waa ii soo dhamaaday. waxay tiri guriga abaayo markaan soo cunug yar hadda wax yar baa tiri sidii jira ilmahayga ugu weynay dhahday kuwa yar wax yar hadda cunuga yarka baa tiri wadanka soo go'i jiray. qayladeedii buuqayga waa la xamil weysna ay dhahday hadii ahaan lad xaajigayga hadii ahaan lad caruurteyda because qof jirana ay dhahday. waxay dhahday rafaada iska haystay. alxaasil hadal iyo dhamaantiis abaayo waa waxay caanjiladaha way badnaayeen laakiin waan soo koobaya ilaahay soo imaqlaayo wallahi aan filsan ahaan ma laga yaabo inaan wax ku daro laakiin inaan wax ka ilaabo waa laga yaabaa amba wax ka tago ano isle clipka ha yaraado caanjilada videoga ha yaraado. marka waxaan ka codsanaa gabdhaha ii soo dhiibanay qisada haday iga dareemaan inaan wax ka tagay waxa waaye inaan ilaawo iyo inaan maaragtaa isdhahay abaayo armaad intaan yartaa ku ekaysiisaa marka iga raali ahaada insha Allah waa ka cudur daaranaya laakiin Allah shaahid wallahi ma jecli hal xabna kuma dari doona insha Allah. marka walaalahayga qaaliga waxay tiri abaayo anoo sheekada soo koobayo waxay tiri abaayo gabara waxay ugu soo share gareysay tiri videogaaga clipkii aan ku sheegay isaameeyay. waxay dhahday waxaan bilaabay ilaahay horta wuxuu ugu soo riday tiri hanuun subxaanallah waxaan bilaabay tiri inaan baxo oo ka bilaabo sidii gabadha cilaajka isku u dhageysato kalena u dhageysto. waxay dhahday abaayo quraankii cilaajka markaan dhageystay shoomaba is ogeyn waa xanuunsanaay shoomaba is ogeyn tacbaanaan ahaay shoomaba is ogeyn wax tiri wax daaweystaan wax qeyrka meesha qeyrka ii tilmaambaan bal ayb khayla afkan furtay dhahday waa wareey balaaya iga dul qaylis. waxay tiri guriga waxaa joogay tiri ilmahayga iyo odagayga iyo imaada xaajigaygii waxay tiri caruurtii ugu soo yaacday waa layga yaabay
dariski ilaa heer dariskii gaarta waa laygu soo yaacay waxay tiri shir dhexdiis ummadii soo taagan fiilsanay oo wallaahi wuxuu leeyahay tiri gabadhaasa ilaahay usoo diray haa walaahi waxay nagu bilowday inay cilaajkii quraankii waxa afkiisa ka dhacay tiri sheega diintaas ma maleyn karaysid tiri waxaan go'aansay tiri markaan soo fiicnaaday inaan is cilaajiyo aan go'aan rasmi ah qaatay tiri waxay dhahday waxaan bilaabay tiri salaatu leelki waxaan bilaabay tiri quraan akhriski waxaan bilaabay tiri waa gabadhi ka saaqiday tiri 15 sano anigoo ahaa la baray tiri quraanka ilaahay waalidkayga bareen khayr allah siiyo waxay tiri haddana wallaahi filsanay abaayo waxay tiri 7 maalmood gudahooda aan quraanka ku dhameeyaa 30 juz ee quraanka 7 habeen aan ku dhameeyaa ay dhahday quraanka waa qatimaa every week hadda isbuuc kasto waa qatimaa ay dhahday quraanka ما شاء الله تبارك الرحمن إلهي هو حفظ إلهي هو بركة واحد هذا صلاة إسك داف صلاتكم مطر صلاة الليل بالعكس صلاة الليل أنا بستاجيتر أنا كعاجز ما شاء الله تبارك الرحمن واحد تريحة في ما دبيلها إلهي ساسو يقرأ سيتر حنون كذا واحد تري قرآنك أنت سوقها طويلك أن كتفو عيالك أن كهرشيا أو واحد تري علمها سيستا وأني أن عبا أو واحد تري قروي كتفتا oo waxay tiri nimcada aan helay wax hadda aan anigu aan ka soo turkoobi karo meeshan ama cod kugu soo duubi karo saddex ma lahayn waxay dhahdaa abaayo ninkayga wuxuu ugu yiri tiri qof kala noqotay walaalay binu aadnimadan ma kugu jirtay walaalay macaanay wooba yaabay tiri afkiya kala sida aan noqday sida aan isku bedelay cadowga igu jira iga dhintay waxay tiri shayaadiinta iga dhimatay walaalahay waxaan leeyahay tiri is cilaajiya aan leeyahay tiri cilaaja wada baahanahay aan is cilaajinay tiri xanuunka intaasoo sano isoo hayay 12 sano isoo dishtay tiri waxay tiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorkaah waa iga qaaday ilaahay wuu iga dul qaaday caafimaada ilaahay isiiyay dhahday abaayo aan la soo tiri koobi karin waxay dhahday wiil yar iga xanuunsanaa oo waxay tiri oo yar iga xanuunsanaa meel aan la geynin malahan korkiya dhan ka baqbaqay tiri hadda koor waa intaan waxay tiri is cilaajinin baqbaqay jirkiisa waxay tiri markii la dhayo wuu madoobaanaya jirki haddana mid kale cusub soo baxaayo haddana wuu madoobaanaya haddana waxay tiri wiilkayga jirkiyo dhan nooc kale ka ahaay tiri waa baxay tiri meel fariistay cilaajkan ilka gartay tiri waa is cilaajiyo waa cilaajiyo tiri wiilka waa cilaajiyo wallaahi dhaqaatiirtu waa yaabeenay tiri waxaa la igu dhahay tiri secretkaaga muxuu yahay sirtaada maxay tahay noo sheeg sirtaada noo sheeg maxaa cunugan soo marisay maxaa u isticmaashay maxaa ku daaweysay subxaanallah bal u fiirso ilaahay subxaanahu wa ta'aala boqorka ahay jas ilaahay u soo laabatay quraanka qiimihiisa soo ogaatay cunugeedii haddana marka ayada fiicnaatay cunugeedii haddana daaweysata ma sha Allah tabaaraka raxmaan ilaahayna uu daaweeyay waa cunuga daawada loo lacay ee dhaqaatiirta ka qoosatay ee markay inta daawada laga marshabo meel kale ka soo baxay nabruhu oo korkiisa dhawada baqbaqeen ee maasha saas uga socotay waxay tiri wax madoobaada la waayay because waxay ugu qubaynaysaa tahliishi waxay marinaysaa tahliishi waxay korkiisa ku akhrinaysaa tahliishi waxay tiri abaay qisadii kale igu yaabka badneed waxay tiri waxay ahayd bas maraaciday tiri baski waxay tiri marran joojiye baaburan soo gatay tiri sababtay tiri ilmahayga dhibkooda waa ilmahan waxay tiri quraan la saari jirin waa ilmahan quraan la xijaabi jirin waa ilmo waxay tiri aan guriga quraan loogu akhri jirin waxay tiri markaan baska soo koro anoo waxay tiri tunta hal ii taagantaan soo bixi jiray tiri qaylada buuqa ilmaha soo qabo waa rafaaday tiri asa waxa ay tiri no ma ku hayn karaba kuwan bas lama baraaci karaba saa waxay tiri baawur u gaday ilmihi ayaga tiri wala koram ku fiirinayaan ma sha Allah tabaaraka raxmaan ilaahu xifdi rabbi raxmaan oo ilaahu ilbanu aadna uga qab waxay tiri kaala arag ilmihi adaabta akhlaaqda asluubta maxaana ilmuhu noocaan ahaayeen eriyay tiri ilmihi waalnayd moodo inay madax looga jiro ee kala haaday subxaanallah war waxay tiri kama sheekeen karo nimcada iyo khayrka aan helay filsanay إلهي أدونك وحن كويدي ترنا في النمعنا كونولا تأخرنا في الجنة أبايا أنا جاي يدعيني الساعة هذا سبب هاي اللي هذا لكن أنا وحن الله هاي قبل السوق هذا كليب كاس قبل أس ولا شيء لقي بس كل وي استقانا وين يسيقانا دبعني وين وقم هاد عيد أبايا أديك أسكال هاي كو لبا قبل ولا شيء نلقي بس قصة أو ولا شيء قلبي كذا قلقشة أو ولا شيء نلش يدي بدشي أو ولا شيء
inay 12 sano xanuun dishtay ee dhaqaatiirta tiraahday noloma ka qabsan karo ee daawo marba la iska siisanay midba nooc la iska siisanay marna ilmaha ku qaxan qaxis marna maaragtay balaayo ku rarneed ilaahay ka dulqaad abaayo gabadhi sabab u ahayd oo clipkeeda videoga ee qisadii ani ay ila qaybsatay u gudbisay sabab ay u tahay طبعا aniga waan soo banaanka waan soo dhigay waana ugu tala galay walaalahayga qaaliga wax yar waxaan idinkaga sheegayaa aniga mii dadka ka cilaajiyo laakiin waxaan bartay oo maaragta maasha Allah tabaaraka raxmaan suuratul baqara iyo faa'iidada ay guryaha islaamka u leedahay markastana waa idinku waaniyaa waxaan idin soo deyn doonaa weegan soo socda biidnillaahi waahid al-ahad sida la isku cilaajiyo afdal cilaaj kan ugu fiican cilaajka sida la isku cilaajiyo idin soo sharaxi doona bilow ilaa dhamaad insha Allah ta'ala biidnillah kariim klibkaas idin soo wada wayna anfici doona insha Allah walaalahayga qaaliga ah kaasaan waxaan soo raacsiin doonaa ina maaragtay amba mobilkayga halkan ku soo qoraya please yaa lay soo wicin ilmo yar haysta ilmo yar kuwa yar kuwa waaweyn kuwa dhaxdhaxad way joogan family ahay ardayadan ahay maamo yaro maamo ilmaheedii yar yihiin ahay marka waxa ii reebaysiin just fariin hada qisa ila qaybsan rabtay hada adeeg wax iiga baahneed hada ila tali rabtay wax walbo dhan halkaas marka igu soo sheegaysa anna waan ku soo jawaabaya insha Allah ta'ala bin lakrib dib ma jiro WhatsApp ka igu soo dhigaysa خلاص mid xigta jirto aniga waxaan ku noolaa Mareykanka waxa laga yaabaa in waqtiga noo kala bedelan yahay oo waqtigeena aad u kala bedelan yahay marka insha Allah ta'ala bin lakrib ha iswareerinin ha isdibin codkaaga amba qoraalkaaga ii reeb kadib ana ku soo jawaabay wiilasha xanuunsan gabdhaha xanuunsan ilaahay waxaan weydiinaa inuu caafiyo laakiin idinka isku dadaala idinka is cilaajiya